guriga xamar ku aragtay daarada xamar ku aragtay oo dhisan ninkii inta baawur qaato ku dhuftay waa inaan la dhaxlayna waay wax kama galaanbo wiil 20 jir ama gabar 20 jir oo hooy aaba soo korsadeen iskool ku jirto la soo barbaariyo 20 sano la dhahay ku naso ninka hooyadeed horteed ku dili ama ku toogtay nin wax dhaxlay ma aha nin la dhaxlayna ma aha shabaab maanta yahuudna kuma tilmaami karna yahuuda baran mareykan mu tilmaami karna mareykan wax lagu tilmaamay marka aniga tusaale aan shabaab waxaan u dhigay kuwa aan la dhaxleenin ikna wax dhaxleenin waay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan rabaa maanta inaan warbixin yar idin siiyo maadaama aad tihiin wariyaalkii ama dadka ka howlgalay deegaankan ilaa Muqdisho meeshan hadda joogtiin waa deegaankan Buufo Bacaad waxaan rabaa muuqaal yar inaan sameeyno oo maalin walba anagu ku mashquulsana muuqaalkan sidiisa wuxuu ku socdaa waa qaybna xaaladda shabaab iyo wax waay iyo macnaha ay sheeg iyo waxyaabaha ay wadaan qaybna saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya u tahay fariin si macnaha ay u arkaan ama ay u daysadaan dhaqamada annaga aan leenahay midda kale waxay kamid tahay amniga caasimadda Muqdisho kale ama gobolkan Shabeellada Hoose degmadiisa kale sidii loo sugo lahay macnaha wax kale ma rabno inaan barnaamijkan uga hadalno hadii si leeyahay karaal noqdo sideedaba waxa ogaatiin haddii la yiraahdo dagaal ama diin haddii loo dagaaltamo sideedaba waxa loo dhintaa saddex hadaf waay oo loo dagaaltamo saddexda hadaf ani waxaan dareensanahay mid inuu yahay awalan diinta inay tahay waxa loo dhinto awalan inay diinta tahay midda labaad oo loo dhimanayo waxa waaye dalka midda saddexaad waaye oo loo dhimanayo waxa tahay dadka waay diinta iyo dalka iyo dadka in loo dhinto waay waxaad ogtihiin diintii Soomaaliya hadda adduunka dhan islaamka dhan diinta ay ku dhaqmaan Soomaaliya aan ku dhaqanno muslimnimadii laga soo gaaray maanta waxa dadku haysto shabaab diintii waay dadkii sidaas oo kale deegaanada waa laga soo barkiciyay waxa ku xigo dalkii marka maxaa far ku jirabo dawladdu waxaan rabnaa inay diintii difaacdo dadka difaacdo dawladdu dalkana difaacdo saddexda loo dagaaltamo waa hadii aan saddexdaas la waayo dal la difaac waayo diin la difaac waayo dadka la difaac waayo had wax qor loo wataa ba khalad marka waxaan rabaa waxaan sameeynaa inay ku daysadaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya meel walba ay joogaan aniga kan Maxamed Sheekhan waxaan ahay taliyaha niso ee deegaankan Marko iyo nawaaxigeeda waxa kale aan si ahayd gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Marko horna uu sheegay haddana uu sheegaynaa amniga markaan ka hadlayno deegaan ahaan magaalada Marko waxaan u jirnaa masaafo 15 kilomitir u jirta Buufo Bacaad cidii taqaan waa ka sii soconaynaa waxaan tagnaa meesha ciidanka difaacida oo jiraan hore Faranga ilaa Janaal inta u dhaxayso waa wadadii dheereed rabti shabaab inay gooso oo ilaahay u suurta gali waayo kadibna inay gooyaan shabaab ciidamadii loo qaaday garaamkii in la geeyo sinabada baawrtii geeso sinabada ay ku soo noqdaan waxaan u taagan 24 saacadood waay waxa kale intaas dheer saraakiisha rabaa inaan kala balamo sarkaal Soomaaliyeed dadkii oo Soomaaliyeed asiga difaacay cabashada ay qabaan ay u sheegi waayaan ay u tagi karin taas hormar ma lagu gaaray kow askariga adiga xukunto ama aad maamusho ilaahay ku makani ama urur ahaado ama horuna ahaato ama koox ahaato ama guuta ahaato askariga adiga aad xukunto inta rabta ahaadaane haddii loo soo mari laayay adiga ninka ku baahan askartaagaas uu soo mari laayay banaankaas laga celinaa cabashiis uu sheegi karin xaafadiina isla joogtiin ama deegaankii isla joogtiin hadda ani ma maleenayo in saas lagu gaaray dawladnimo ama Soomaaliya lagu gaaray taas ani lama aha waxaan rabaa ninka shakhsiga ama shacabka in aan la argagax gelinin istaag iyo naq baawurkaas iyo khore ku qaba iyo xagga ka wareejiyo maxaa dhacay Soomaali waay iyadoo wax ku gaarsi karan askari ugu horeeyo haduu arko cabashidiisa ama riboodkiisa la soo gudbiyo ninkan si xur ah Soomaalinimo in aad kugu amaan karo waay agtaa uu amaadod la hadli kartid waxaas qaba aad u sheegi karto waay laakiin hadii askariga aad ka horeeyo saxbad ku rido adna ma kisku soo kulmaad leedahay ay keenna iga dhaqaaji saas saraakiisha Soomaaliya hadii ay dhaqankooda yahay meel lagu magaaray ani dawladii Cabdullaahi Yuusuf guuto 15 ururkeeda koowaad ahay dawladda ciidankii Beledoogle ka soo baxay xamar galaan kamid ahay dhaqamada noocaas waa lahayn hadda u dhowdahay dhaqamadii ay fiican yihiin waxaan rabaa in askariga aad wax dhiiraanin ma aha aniga sarkaal aan ahay tali urur aan ahay askariga aniga xogeeyay ama askariga in aan ahay aniga gogashi iso gogoliyo bi wax ku soo shubo keeniyo raashinkii meesha igeeyo sida booyas oo kale ma aha waxa khasab askariga inaad u gasho jikida aad raashinku u kariso oo hal mid laga diiday askariga markii raashinka loo kariyo loo diyaariyo la keeno in saxankiisa loo soo dhaqo saxankiisa soo dhaqana saxankiisa soo dhaqdo waa lagu ridaa waa la soconaa laakiin ma aha aniga jikina ma galay ma ka dhawaanay askartii gaajo u dhamaanay
بويس المكودبة أما أسكرتي أول رقم سيد بويس وكلام ليه هاي إن جكذا سجل إيوه جوجش هجاجي إيوه هذا بويس دونه سركال الصومالي ده تاي وحال ربا تارت بيجنس at home but not end وحما خرج الإنجليز ما إنجليز شارت بيجنس at home but not end صدقة الجورية كبلاوة لكن بناك ولا ماتا وناك هكا بلاوة أديها أسكرتها ولا ماذا لكن أديها وناك هذين يخوف شعبنا مكسور واكر ولو كان أسكرتها مكسور واكرته وناك أكيد سمعت ما حالين كرتها وحالين كرت الملأ مركو حربا howlaha amaanta rabno inaan idin tusnaan guud galina kushinkan waa inoo diyaarsan yahay lo aan oodo meeshan oo ciidamada ay leeyihiin qaarkooda beeraan tacbana ana warkaas ma ka warhayna iyo qaraxa dhacay iyo jini meel la leeyahay iyo diid ilaahay rag u taagan raba in la helo sideedaba ay qaarna difaac jiraan qaarna ay jikadii ku jiraan raashin karsadaan iyadoo aan qof lagu mashquulin mid labaad raba waxay tahay nimankan la yiraahdo shabaab qaabka amnigeeda la rabo in loo sugo caasimada muqdisho ma ku sugmayaan أنا ودرن سنة إسرائيل بدنا جوكتو وحن حدا كسم مجا قاضي هذا عن عاد معناها إيش عن أركتيس وجعل نكلي هذا صادق جون ونسر كله صادق جون اللي هذا حمر جوجو وكوخنا عسنا شيخ ديس لكن سجرب ما هايو سنا أنا إلتها وحرمنا مقدش عيدا كجوجو يكون دفاعية الجوجو وحبدا كو مقدش جوجو أبدا دفاعية الصومالي كو جوجو يكون مقدش جوجو عيدا كمجاديد كدولة ده كو مقدش جوجو أبدا أمنيجنا maalinta ka dambeys waa xunya sidee lagu sugi karaa amniga waxa lagu sugi karaa dadka horta awalan in la iskaga weyneen dadka la dhaqmo midda koowaad waay si loo dhaqmo dadka markii xamar waa 18 degmo 16 degmo 15 districts iyo macnaha 15 degmo iyo 18 degmo waxa lagu markaa ka soo qaad 18 degmo ka soo qaad ciidanka jooga ka badan 18 degmo markaa haddii la sameeyo isgooskan Kasabal Balaara iyo isgooska number 4 oo isku dhow isgoos maxalla Bakaro iyo Kasabal Balaara isku dhow waa laba isgoos oo isku dhow sida aan qabo ciidanka joogo isgooska Bakaro oo teendada ugu taaganta masaajidka hortiisa qofka lagu dilaayo ama miinada guriga meesha taal lagu farsameynayo u jeedad waa nidaamka ugu xun ee askarta ay ku dhaqmaan waaye sababtoo taas maxaa keenaya askariga waa la soo qaaday isgooska Bakara la geeyay waxa amniga inta ka sugay teena meesha loo jeedo qofka deeskiisa waxa la tadawsac inuu garaaco sida BC oo dadka isbartaan askariga markii sarkaalkii wato keeno isgooski Bakara keeno amni la'aanta muqdisho ka hadla isgooska Bakara markii la keeno askariga sarkaalkii keena Kasbal Balaar ma garay askariga waxa jooga boondheer isbaar iyo marduuf jaad iyo mijing meel ka soo qaad iyo isku maqnay dadka ma aamini karaan hadii amaado ninkan labaad maanta lagu keenay markii la rabay in la isfahmo oo isbuuc bil asjooga la rabay isla markii la keeno askariga baa waxa jooga ka guda email darnu jooga 20 maalmood kadib haddana asarka qofkii deegaanka ay sidee wax lagu sheegaa marka guriga gadaashiisa مين اللي وسميها ما ديه كرو من هبلا ماشان سودجا بمبتورة ما ديه كرو أو ما ديه كرو محلا إيشك إن حافظان من شباب السوق ما ديه كرو صوبته إن أساس الشباب هي إن كلا يوجين بدك شعبك لكن دتك هدي لا دحدجو أو جريه لجود إجارته ناجح ماشان لجورسدو جريه لدجو أو إلى كي بين كرب أي حالة عادتها وحي مجال الكجر يجوي مجال الكجر اللي أجاده أنا وح من سنة هاي كمحمد أهان أمني مجال مقدشو بقول كيبه بقول نخرة لكن أنت عسكري الصوماليات مركي اللي كانوا دفاعي سي أو لقسي وضو إلى كيف بين كرب دفاع كان اللي سيجي أسكت تقول دفاع كلا هذا وحل أس إلهي أورتوس كان مجران مركاني وحربا دردار أهان وحربا إنا أولا دردار ما سراكيش جوكت مقدشو دتكاس أمني قلت إن السوق جعل أفر إلى 20 ساعة وتاجن دال أميرو لكن وحيد منتها هي دتك إن الله رحمه حافظ والبعيدا قار أهلو أجادو دتك هبين سديت ساعة لك يولي ربيان ربنا ويسخاده أولي رادو ورنمي وعشاء أنا قاضي عشان نصار نوكري اللي رادو لكن الشخص الصبح دي كوارك لما أتم معلومات كدي كواركاي سيدسكو أمين أقولي كذا من الوسنا ولا جو كذا مركو حربها على قتك إسكوسيا ده حافظها هلا قالوا حافظ كستعين هلو خيبيو هل أجادو هل الدجو سيدا مقالنا مركو نخطي يكدرين خليسة مقدشو أنا سنة من سنة وايكو واحد يبكي وقت مركو مقدش يبكي كوت شباب ما أنت يهود نكم تمام كرنا يهودا ورون مريكا مقتلم كرنا مريكا نروح له تمام ماله مركو أنا اتصال عن شباب وحنقول لي كوا أن لا دحلين يكنا واحد دحلين واي guriga xamar aku aragtay daarada xamar aku aragtay oo dhisan ninkii inta baawur qaato ku dhuftay waan inaan la dhaxleen waay wax kama galaanbo ku wiil 20 jir ama gabar 20 jir oo hooyo aaba soo korsadeen iskool ku jirto la soo barbaariyo 20 sano la dhahay ku naso ninka hooyadeed horteed ku dili ama ku toogtay nin wax dhaxlay ma aha nin la dhaxlayna ma aha marka nimankaas waxay mudan yihiin in la iska qabto Soomaaliya mid kale difaacidan yaala hadda ka soo qaad meelahan oo kale difaacidan had aragtina malina inta xuduudka Kenya ma Ethiopia ma askartii Soomaaliga Soomaali dhaxdeeda difaac oo jira nin Soomaali loo jira war goorma xuduudka la taga adaabna u dhigana shaabe Soomaalina ka baxdi wax lagu tilmaami kara male
goorma la tagaa xuduudkii Soomaaliya marka oo la difaaca ciidamada gada joogo kale maalintii Kenyatta ku dhagan yihiin